بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joogaa waddanka Germany maantana shalayna waxaan joogay deemka waa habeenay baaqi waxaan doonayaa inaan idin la qaybsado in yar baan doonayaa inaan idin la qaybsado soo dhawaada inoo sheer garay kol waa iska xilli dambe waa iska habeen inoo sheer garay intaad gaarsiin karaysaan gaarsiiya waxaan doonayaa inaan caawa halkan kala hadlo beesha aan ka dhashay ee habar jecel la yiraahdo iyo inaan ka hadlo beesha Ciise Muuse ama Habarawal ayaan caawa ka hadlayaa Ciise Muuse waxay caadaysteen inay dilaan saraakiisheeda haddana beesha habar jecel Ciise Muuse برجي كتفقي يجيلا قربت إسهيين واحد دلين ننها برشلاه تبتنا عيسى موسى هبرشلاه ويعفدي تبدأتنا واحد عضي عيسى موسى أنا هدنا صوب حين ونكل هبرشلاه دلين هبرشلاه مركها كتفقي نكلورين شري السلطان habar jeclaha ahaa markaa ee hogaaminaya habar jeclo wuxuu u diyaariyay Ciise Muuse ciidan xasuuqa oo baabiya ayuu u diyaariyay Ciise Muuse reerka leeyahay maalintii aanu dagaalka soo qaadnay waxaanu u nimi kitafaqi oo la dilay oo ay dileen dhulbahanti habar jecel haddaanu nahay go'aan baanu gaadhnay waxaanu maadaama geelo garoobeed la dilay inana aynu isaga doonayno inaynu dillo aanu soo arno dabeetana waxaanu ka daba tagnay nimankii dilay oo ahaa tiro gaadhaysay 1500 oo nin dabeetana gabay buu ninkii la oran jiray kitafaqi oo qaybsiiyay ciidankiisii wuxuu ninkaad waranka ku dhufataan ee disheen waxa tiraadaan in kastuu isku maysto ama uu isku maado isaaqeeriga guudiyo gundaha waa ka walaale aarde dabeetana nimankiyo inta guryahoodii tageen baaldegaya ayaa waxa gaadhay ciidamada habar jecel dabeetana nin allaalaya ninkii waranka lala gaadho waxa la yiraahdaa geela garoobeed maalinta Ciise Muuse waxa laga dilay 764 nin waxaanu u dilay 3964 nin ayaanu maalinta ugu aarnay reerka la Ciise Muuse Ciise Muuse waxay leeyihiin samana isaga de habar jecel ugu badan samana abakor reer kale isaga habar jecel ugu badan waxa ka badan 2 jeer reerka aadan madoobe la yiraahdo Ciise Muuse dhibaato badan bay noo geysteen waxaanu uga dagaalameen ceel girdi oo dhulkayagiya waxaanu u qaadanay tuliimo Ciise Muuse waanu nabad gelinay Ciise Muuse waxay naga dileen caaqilkayagii ahna sarkaal ciidanka Soomaaliland ka mid ah nin walba uu garanaya oo nin Muuse Abakar oo biciida ah وما أنت هبرت على خيارها وأود بدن كذا شيء والله هبرت على شيء ساي الساقبة أنا يسكي علين كرين خير اللي
biciidu ka dhashay oo biciida marka halkaa la kala dhigo reer iidla isaaqoo dhan ka badan reer iidle ayaa isaaqoo dhan ka badan waxay naga dileen amina waris iyagoo garab ka dhiganaya oo seedinoo soo maraya ramaax ninka la yidhaahdo cabdishakuur cidin ninka la yidhaahdo cali xoorxoor ninka la yidhaahdo allaahuma salli calaa maxamed guddoomiye ku-xigeenka ahaa ciise muuse talo loo dhan yahay ayaa waxay nagaga dileen caseer maalintiina laga dilayay taliye ku-xigeenkiisii guddoomiye ku-xigeenkii magaalada berbera oo nin ciise muuse ahaa xabadda laguma dhufanay inankayagaba xabadda lagu dhuftay oo in adeerkaya ahaa dowladdii siiraanye iyo aamino waris intay nimankii qabteen ayay yidhahaan dil baanu ku xukunnay dabeetana UNT qaramada midoobay waxaa tiri dadka hadday wax dilaan xabsi bay ku dhammaystaanoo 8 sannadoode annagu dili mayno hadda eega soomaad garanin ilaa imika ninkii sanad wuxuu naga mootan yahay sanadii wax la jiray taliyahayaga 6 nin baa naloo xukumay ilaa imika nalooma dilin maanta ciise muuse waxa ay dhigeen oo labaad in ay dilaan nin reer raaga ah oo sarkaal ciidan ah oo waliba ay yiraahdaan gaadhigiisa la dhacay inta 11 xabadood ku dhufteen ay yiraahdaan gaadhigiisa la dhacay war wallaahi oo igu billaahi oo igu tullaahi waaniga dhaartay haddaanu nahay habar jeclo wallaahi baanan habar yunisna naxariisu gelin habar wala naxariisu gelin soo dilkeegu idinmuu noqonin xalaal soo dhiigeegu xalaal idinmuu noqonin soo habar yunisay idinna intaad halkaa marteen oo aad musabixi dili aad ku kibri kar weydeen soo annaga nameedaan leeynin maanta waxaad naga heshaan badleedii والله باني سوماليلاند iyo billaahi iyo tallaahi jireynin maalintii dhawaato labadii dagaal saddexdii dagaal ee ugu qaraadha ee Puntland la galay maalin walba ninkii laga aasay 240 wiil anigu nacdal yahay nacdashu dhashay Soomaad garanin maalin 44 wiil baa laga aasay 230 dhaawac bay ahaayeen intuu baabar jeclay ahaayeen 7 wiil baa laga aasay 4 dhaawac bay ahaayeen intuu baabar jeclay arab 2 nin buu yeeshay habar yunis nin bay yeeltay hadeega samaroon daa hadalkeedii gabooyada hadalka nacdal ba hooyadii ku taale Soomaaliland nin habar jeclaa baa leh xaraantu dhashay ilaahina waxaan ballan idin ku qaaday Soomaaliya inta sarkaalkayga kala dishan ciise habar walay maadan oranin gaari baa la dhacay hadana nolosheedu ku gubin habar jeclana lama yiraahdo habar jeclana kamaanaan dhalanin hubsiima ma jirto in adeerkii 3 cisho ka hor baa la dilay in adeerkay 3 cisho ka hor baa la dilay Soomaad fahmin in adeerkii 3 cisho ka hor baa la dilay Soomaad garan habara walinta ka tira leegeedna Facebook bay soo fadhiisatay si ay Muuse uga difaacdo bal habar jeclaaniga kale iyaga difaaca daba Muuse iyo habara wal sorry habara walay kale aniga Muuse iga difaaca nin habar jeclaabana Soomaad garanin Somaliland shalay markii loo dagaalamay ana u dhintay ana u rugmaday Muuse galcad la soo baxay maftacada la soo baxay idu ka bariyo soo kibriisin caare Puntland badu ka shaqay ha dumarka dhaantaan inta yaacdan dumar Puntland u ka shaqay wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan ku dhaartay heedadi hadana hargeysa habar wal ka qabsanin habar jecel kama dhalanay hadana hargeysa ka qabsan habar jecel kama dhalan hadii nin dambe habar wal la arkana xaraan baan lagu tilmaamaa warxamso iska fariiso hooyada bad isku wasi iyo habara walbe inuu gumeed ku dhaaftooda ka dhuusa
sacad muuse tooftada ka dhuustaay nacdale nacdashu dhashay fadhiiso hooyadaadii sagaalka sii lahayd was fadhiiso eeyo way ku dhalay nacallaa waalidiintiin ku yaale ma dhul baad leedihiin mise dal baad leedihiin gunya guntu dhashay habar yoonisna annaga idinka yeelinay habar yoonisna fulaynimadeeda isma odhanin nimankaa la dagaalamo oo aakhiro u diree inta yaaceen bay puntland u galeen yana waa xoolo dhalay war caara tuug buu ahaa oo guryaha habar jeclo tishingadaa kala degi jira ee aamusa yaan ummaddeedii ku qoslaynin nacdale nacdashu dhashay ciise muusow gaadhi baa idin qaada waxaad maraysaan dabeetana aamino warsi inaanu idkaga xishoonayno war siilaayan wuu dhacay xoolayo xooluu dhalay siilaayan wuu dhacay siilaayan waqtigiisa waa ka dhamaaday aamino waris baa 7 sano dalka xukumaysa dadkaba wastay xitaa saraakiisheeda annaga aamino waris baa laysay soomaad garanin islaantan afka qalloocda ee cuqubada afka qalloocisay iyadana futadan waxbad kala dhacayna annagoo qabna ma cid badanna taqaana annagoo haddaan habar jeclanahay eeyo dhashay ma ilaahay baa idiin qoray horta habar awal ee dhulka taliyaha ciidanku waa habar awal 60% boqolkiiba waa habar awal dalka xukuma umadaydan dhimanin dalka saraakiil maydaan ahayn bootar iyo diyaanad iswada marinaysiin kalabiye kalaabtu dhashay soomad fahmin war habar yoonis waa rag dhiigli dalkan Soomaaliland habar yoonis habar jeclaa iskale laakiin habar yoonis annaga nagu wacad furtay haddii habar yoonis annaga dadna wadan lahayd habar awalay futada hoosteedaanu idin gelin lahay wallaahi mashruuqaanu xaarka iskaga binaanu idinka dhigi lahay laakiin habar yoonis baa ilaahay wuxuu geliyey difaac habar jecla la yidhaahdo waa cawaan iyaguna waa cawaan haddaanay cawaan hayn difaac habar jeclo may galan war dalka innagaa u dhimanay basaraakiil baad lahaydeen maxamed cali oo geed dushii ku baktiye baad lahayd xitaa aan dagaal gelin habar yoonis waxba mana fakin sarkaal bay lahayd maantana fulaynimo habar yoonis intay ka qabaan inta yaaceenba puntland u galeen war walaalayaa xukbi nasiya military abiiniya military-gaba wasameeyeen Soomaaliland u dhalanin naagu dhaleen maxaad habar jecla ka doonaysaan guba dalka ciidanka gala xawlayo xoolo u dhaleen annaguna maanta saraakiisha ugu badan iyo ciidanka ugu badan annaga ale Soomaaliland wallaahi oo billaahi oo tallaahi habar awalay Soomaaliland caydaysanina saraakiisheeda dishaan haddaad fadhidaan heedhade garhka kaadigaga xira habar jeclana kama dhalanayno gumad dhalay baana habar yoonis wuxuu sheegay habar yoonisay wax allaalay waxaad naga disho waa idiin saamax wax allaalay waxaad naga dishaan haddaan habar jeclanahay waa idiin saamax Soomaaliland garanin tolba waxaanu nahay dad walaalaabaynu nahay cadowgiinuna waa habar wala ogaada Soomaad garan war anigu Faransiiska jooga oo Yurub jooga ayaan Soomaaliland rugaya because habar jeclaan ka dhashay rag baan ka dhashay de munay muuse waqtigiisa u dhamaaday Soomaad garanin muuse waqtigiisa u dhamaaday caawo baarliin baan jooga waxaan ilaahay ballan idinku qaaday oo rabbigay ballan idinku qaaday heedhade inaan habar walaayada nabad ku ledin soo kursiga anagu idin maana saarin ciidanka ugu badanna annaga leh hubka bari yaalana annaga leh habar jeclaa leh anaa idin bari habar jecla waxay tahay habar walay barina waxaan idin sheegaya berbere inaan lagu wada fadhiyo doonin haddii habar jecla iyo habar wal bari ciise muuse waliba heedhade walaal habar awal inan bay nasiyaan markay doonayaan inay habar yoonis gumaystaan maanta inantii na gumaystay aanu qabnayna way dhammaatay inantii ma joogto maanta muuse laba dumar oo kale u qabaa muuse aana joogo nin habar awala futadaanu xabad idinka gelinayna idinkii hooyadiinba annaga inantii aadna siin jirteen annagoo hablaha waanu ka xishoonnaa habar awalay inantii way dhammaatay gun yahay guntu dhashay gun baydaan nasab baydaan ahayn gunni baad u dhalateen wallaahi habar yoonis waa gun iyo waa nasab ee habar awal waa gun ilaah bay igu isaaq reer reerka ugu gunsan waa habar awal aamino waris hanay u sheeg xaarka ka maydhe iyadaa fashay oo sixirtay siilaayo aamino waris baa sixirtay iyo samsam
cabdi aadan baa sirxay oo foororiyey soomaad fahmin xitaa markii uu eriyey madaxtooyada ka eriyey xirsi baa usoo maslaxay dabeetana waa kii odaygu xaafimaaday ee wasiirada isku shaandheeyey ee balaayada sameeyey ee kadib inta loo soo celiyey haddana ay dib u fashay nacallaa falkeedii kaga yaalay guniga guntu dhashay fal iyo reer galbeednimo iyo sixir iyo qurin iyo qashaabir badnimada dalla dabad gashaane والله آخرنا حبر على كفارة قاعدة والله إلهي النبي محمد يا حبر على آخر شوف إلهي النبي محمد يا حبر على آخر شوف تذكر كلا عذاب تلقو قري كان هذا حبر على بكليش نعذل هو يدم كنت هلقوني وكنت لش والله وبالله وطلع حبر على بك كان هذا جليس أنا نكر الجلي سومات قرن مناي موسى فرور هبر يورس وكبغ انا كنت سافر شعره والله بالله قلت له هبر يورس وكبغ او كو بدلان غلاي نداو انغ نانا شاده ورد سيلكاغا هويلاد سيل خلخلايو انتا افكيسو لغيay baad haysaayo dhilaynima sagaashanka ku gaadhay orada hawiye adu siigan jirtay alla siilka baqaariga hooyadaaba kaaga yaala kalbada kalbada dhush orlaad nacdalba hooyadin ku taale ruweeda inaad roon ku salaamay ruweeda doqon baat wallahi oo billahi oo tolay doqon baat gabadh reer daahira oo faarax cabdillah kibirtay baat reer daahira sanadba iskuul yar lagu kaajay soo sawiras na tolka kici tolka kici yaa wax ka qaadi kara kibir oo tolka kici nacala hooyadin ku yaal ku dhabar jeclay habariyus dimirmale oo ku bulan galay kaade neysila ma ka ifkurigeeda uray maxay gurigu reegaysanaysa naadadka ku soo والله بالله تلاي أمشي سيل كاجبان هيا رحمر كاسو دوين نشاطي والله سيل كاجبان هيا وقعد موديد بخار لفولي والله وبالله إله بقى يجو جي مكانك صدقي إله بقى يجو نعلا أف والله بالله تلاي نرش ناكل سيل مارك على البه هو يضاق تعلي إله بقى يجو جنا عرق خانة ذاك هفرن ما أفكي ضل ينعدش لش وإذا هذه سيلك كله يسجل وص ندف وإذا هبر أول بوص هو يدين مجال وسط كان أنا قصدي كذا عليه أنا قال ما بحرك يلا إنسان يسوقه تسيلك ويك ميكروفون كوكو ذا قرطة لوصل رش ولا بنادر والبنادر بقصاد جاي oo ii soo diray siilkaaga doqonay wiil banaadir baa ka soo diray adoo siilka ka dhusay barqayo shan furood isku jiray waliga siil shan furood gashay kaaga mid kala ma arag nacala hooyada ku yaali laayna kugu kaaci hooyadaadii dhilada ahayd was in laga tag adalina adalsh nacala hooyada siilka kaga yaali iyo habara walba